shir looga hadlayay hanaanka cunnada sugnaanta Soomaaliya iyo wax soo saarka dalka ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Kismaayo. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xanaanada dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed iyo wasiirro ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland oo ka kala socday wasaaradaha kala beeraha, xanaanada xoolaha iyo wasaaradda qorsheynta Jubbaland. Shirka intii uu socday ayaa waxaa si weyn loogu falanqeeyay xogaha ku saabsan xaaladda cunno yarida ee ka jirta dalkeena Soomaaliya iyo waliba sida wax looga qaban karo. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa ka hadlay sida la isaga kaashan karo xaaladaha cunno yari ee ka jira gudaha Soomaaliya. waan qabanaynaa waan u shaqeynaynaa ummadda Soomaaliyeed dadaalka aad soo geliseen idinka wasiirka beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha oo ay hoggaan idinkugu ahayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waad ku mahadsantihiin. waan qabsanaynaa waan u baahannahay in ay soo noqoto dowladnimadii Soomaaliya markii mashruucan wuxuu ka turjumayaa in laga guurayo mashruucii non governmental landiga ahaa ee ay nagula shaqaysanayeen hay'adaha caalamka ay nagula shaqaysanayeen sababtoo ah wasiirka iga horreeyay baa sharaxay sida naloo dhaqaaho waa dhulan dowlad lahayn lacag baana la siinayaa waana lagu magacaabayaa donors baa bixinaya ama bangiyaa bixinaya waxaa la siinayaa hay'ada international la siinayaa waxay siinayaan maxaa la yiraahdaa NGO local ay iyagana siinayaan wareegaas lacagtu way ku dhamaanaysaa wax yar oo hana ka dhargin hana ku dhiman oo yaa soo gaaraya filliga soo gaaraya deegaanada dadka Soomaalida ay joogaan ee lacagaha loogu talagalay balse maanta waxaa noo muuqata in ay dowladdu implementation ka tahay granted ka tahay witness ka tahay dhammaan maxaa yeelay labada wasaaradood oo fulinaysa maahay saddex wasaaradood wasaaradihii maamulka dowladda kuwii ugu faradhubnaa hadday tahay maaliyadii hadday tahay qorsheyntii hadday tahay environmentigii yaa goobjoog ka ah oo loogu talagalay inay mar walba dib u eegis ku sameeyaan mashruuca ma laga been sheegay ma laga run sheegay arrintaas waan bogaadinaynaa. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa isaguna ka hadlay sida wax looga qaban karo xaaladaha cunno yarida ee aafeeyay Soomaalida. Kambaniya fulinayo arrintaas saas ay wax u socdaan marka mashruucan FSRB aad buu wuxuu u yahay tijaabo fiican buu ugu yahay dowladda Soomaaliyeed anaga ka Jubbaland ahaan waxaan aaminsanahay inaan ku filannahay kan iyo boqol la mid ah inaan fulin karno wasaaradaheena capacity-gooda iyo tayadooda iyo qaraankooda way leeyihiin waxaan rabnaa mashruucan insha Allah sida ugu quruxda badan inaan u fulino waliba waxyaabaha aan qabno saaxiibadeen wasiirada federaalka markaan la kaftameen waxaan dhahnay aad baad ula soo daahdeen oo shirarkii doociyada aan galnay hadda waxaan dhahnay mashruucan xilliga loo baahna aad baad ugu dib dhacdeen waxaan rabnaa January inuu soo bilowdo hadda laftarkeeda waa leenahay wasiiryaal idinku aad u mahadsan waxaan rabnaa isla maanta wixii naloogu baahan yahay anaga diyaar aan la nahay idinkana inaad dardar gelisaan sababtoo ah mashruuc inta badan xuja laga dhigaa waxa lagu leeyahay levelkaas soo maraya facekaas ama wajiyadaas soo maraya lagu leeyahay haddana timekii markii adiga adoo diyaar ah inaad fuliso baa laga yaabaa waqti in lagu dilo lagu yiraahdo haddana waa dawladdu way fulin weyso mashruuci ayadoo dawladdu waxba gacanteeda soo galin marka annaga Jubbaland ahaan heegan baan ugu jirnaa wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya shirkan markii la soo xiro wixii looga baahan yahay in loo sheego diyaar aan nahay waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed oo sida runtii gudoomiyaha rugta ganacsiga uu sheegay oo shaqo la'aanta oo banaanadan joogo dadka Soomaaliyeed noloshooda waxay ku tiirsaneed beeraha iyo xoolaha Soomaaliga wuxuu ku noolaan jiray cad iyo caano waxa la yiraahdo intaba wasaaradda xanaanada xoolaha iskale haddana beerahan waxa ka soo baxo ama xoolaha cuno ama dadka cuno. ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa ka hadlay hanaanka sugnaanta cunnada ee dalkeena Soomaaliya. dhibaatada iyo gaajada marka maxaan uga bixi karnaa waxaan uga bixi karnaa wax kaliya aan haysano oo aan hubno oo ummadan Soomaaliyeed ay leedahay inaan ka shaqeysano oo aanan u fikirin waxyaabo badan oo annaka aanan gacanta ku haynin ama aanan lahayn inaan u fikirin maxaan leenahay بالحقيقة وحن لنا هاي سيدا أد أكتيين حول بدن أو مركي قياستو ذا الشيء 6 مليون حول كبدن ودل كان صومالي وليه هاي
adduunyadana hadda maanta markii laga hadlayo wax laga hadlayo waa food security cunto la'aan waa wax laga hadlayo waa aragteen meel walba wax laga qaylinayo sideen u horumarinaa xoolahaas oo dadka adduunyada aan ugu dhoofinaa oo aan ugu helnaa suuqyo iyo waxyaabo badan iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda saan uga shaqeynaa waa arrinta noogu muhiimsan inaan ka shaqeyno wax noo xiga waxay tahay waa arrinta kala beeraha Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto Wama TV Kismaayo